Intaanan gudaha u gelin muuqaalkeena aan ku xasuusino haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Wiilkii ayaa ku bilaabay sheekadiisii sida tan. Sanado ka hor xilli aan waxbarasho ku jiray ayaan isbaranay gabar u dhalatay Brazil, kana shaqaynaysay mid ka mid ah safaaradaha Nairobi. Xiriir gaaban kadib waxaan isku afgaranay in aynu isguursano. Waxay khadka Skype-ka iga bartay familkeeda jooga Brazil. Muddadii guurka aynu ku ballansanayn markii la gaaray ayaan ka cudur daartay guurkii. Weli arday ayaan ahaa, dhaqaalana maanan haysan. Way ka xumaatay, waxaana misna isku afgaranay in 6 bilood kadib aynu guur ka dhigano. Isla duruufihii dhaqaale oo weli taagan dartooda guurkii nooma suuragelin. Waxaa baxday 1 sano. Maalin ayaan waayay meel ay ka baxday gabadhii. Taleefankii waa dansatay, barteedii internetka way xirtay, emailna kama soo jawaabayso. Waraaqo iyo alaabo kale oo ay lahaydba waxay yaaleen gurigayga. Toddobaad kadib ayaan tagay safaaradii ay ka shaqaynaysay si aan ula kulmo haweeney ay wada shaqaynayeen oo kol hore ay iska kay bartay. Waardiyihii safaaradda ayaa igu wargeliyay in aysan rabin in ay la kulanto. Waa muddadii igu ciriiriga iyo igu walwalka badnayd noloshayda. Bil kadib ayaan safaaradii ku laabtay, waxaana la ii sheegay in gabadhii xiriirka aan lahayn ay shaqadii ka tagtay kuna laabatay Brazil. Waxaa ii bilowday safar dheer oo noloshayda siyaabo kala duwan u saameeyay. Muddo kadib waxaan ka degay magaalada Rio de Janeiro. Waxaan wataa waraaq ciwaan ah guriga uu ku qoran yahay. Warqadda oo aan ka dhex helay alaabteeda waxaan u soo diray hooyadeed. Taxi ayaan qaatay, wuxuu isii istaajiyay ciwaanka aan watay. Waxaa albaabka iga furtay hooyadeed. Way iga naxday, albaabkana dib ayay u xirtay. Daqiiqado kadib ayay furtay albaabkii iyadoo ilmo hindhaheeda ay qoyan yihiin. Waxay Ingiriis jajab ah igu tiri, maxaad rabtaa? Waxaan weydiiyey in inanta aan la hadli karay in kale. Dib ayay guriga ugu laabatay. Waxay ii keentay warqad adrees uu ku qoran yahay. Albaabkiina waa ay xirtay. Tagsiilihii ayaan tusay oon ku iri igee adreeskan. Suu ii sii waday ayuu i keenay meel xawaalo ah. Waan filan waayay, meeshii aan taagnaa ayaan ka dhaqaaqi waayay. Tagsiilihii oo weli warqadii gacanta ku haya ayaa horay u sii socday. In yar kadib ayuu istaagay iina yeeray. Markaan u tagay waxaan arkay xabaal ay ku taal magacii gabadha. Ilaa iyo maanta waxaan mar walba ka fekeraa in dhimashada gabadhaas aan anigu sabab u ahaa, ama dad kale ama xaalad kale ay gashay oo ay ku geeriyootay. Runtii